furitaanka wadada isku xirta isgoyska lambar 4 iyo tarabuunka ayaa qayb ka qaadanaysa fududeynta isku socodka dadweynaha iyo fududeynta ganacsiga caasimadda. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa caawa kormeeray howlaha furista wadada isku xirta tarabuunka iyo lambar 4 oo dib loo furay kadib muddo 10 sano ay xirnayd, taasi oo halbowlo ah isku socodka caasimadda. wadada isku xirta tarabuunka iyo lambar 4 ayaa muhiim u ah isku socodka dadweynaha iyo ganacsiga magaalada Muqdisho, waxayna furisteedu wax badan ka tari doontaa fududeynta saxmadda iyo ciriiriga faraha badan ee ka jira wadooyinka caasimadda. Shacabka Muqdisho ah kuwa ay ka go'an tahay inay si qorsheysan u wajahaan duruufaha amni una midoobaan xasilinta caasimadda ayay wax badan u tari doontaa wadadan furisteedu. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa soo indheeyay howlaha nadiifinta iyo qaadista dhagxaantii ku xirneed jidkaasi, isagoo warbixin ku saabsan furista wadada ka dhageystay mas'uuliyiinta dowladda hoose ee Xamar oo horkacayay kusimaha gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble ayaa horay u ballan qaaday in la furayo jidadka caasimadda si loo fududeeyo nolosha dhaqdhaqaaqa ganacsi ee shacabka Muqdisho, isagoo shacabka ka dalbaday inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka. Bismillaah, waxaan caawa halkan u joognaa furitaanka wadada isku xirta lambar 4 iyo isgoyska tarabuunka. wadadaas oo loo yaqaan wadada Cabdiqaasin. waxaa halkan ugu soo kormeeray ra'iisul wasaaraha si uu horeyna ugu dhawaaqay in wadada la furo, annagoo ka duulayna amarkaas madaxda sare ay bixisay. waxaan maantay furnay wadadii, waxaan ka dhamaynay dhagxaantii tiil iyo wax walba qashinoo yilay. laga bilaabo biri wadadu waa furan tahay, shacabkuna way marayaan haddii alla idmo. waa guul weyn oo soo hoyatay shacabka Muqdisho oo muddo cabasho ay qabeen ah. cabashadaas waxaa ka jawaabay madaxda sare oo ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah iyo ra'iisul wasaaraha. hadda oo saacadu ay tahay 11 ayaa nala joogay halkan ugu soo kormeeray ra'iisul wasaarihii. waxaa amarkii uu bixiyay ayaan fulinay, dhammaan hay'adihii quseeyadana way ka qayb qaateen, waana la fuliyay amarkaas. wadaduna waa furan tahay, shacabka biri wadadan waxay mari doonaan sida wadooyinka kale. wadadan oo xirreed sanado fara badan biri waxaa mari doona baabuurtii iyo shacabkiiba dhammaan. wadaduna way furan tahay laga bilaabo saacadan. shacabkana waxaan u baaqaynaa inay wadooyinka xiranna saasa loo furi doonaa marka duruufta timaado. dhammaan madaxda iyo maamul ahaan waxaan aad u jecelnahay in dhagaxa laga gudbo, laakiin waxaa jira duruufo oo hal mar aan la wada qaadi karin. tartiib ayaa loo dhamayn doonaa. annaguna taas ayaan hormuud ka noqon doonaa. madaxda dhammaanna intaasay ka midaysan yihiin. shacabkana waxaan u rajaynayaa guul. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkan dambe waxa ay waday furitaanka qaar ka mid ah wadooyinka caasimadda oo horey loogu xiray xaalada amni, balse iyadoo ka jawaabaysa cabashada shacabka ka imaanaysay ayay dib u furtay wadooyinkaasi. waxaana shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay ku nool caasimadda in ciidamada ammaanka ay gacan ku siiyaan sugidda amniga caasimadda si aysan uga faa'iideysan furitaanka wadooyinka kooxaha argagixisada ee nabadiidka Al-Shabaab. Nasr Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.